أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي بمهد اسكاله maanta waxay maalintii lixaad runtii oo shaqadu aad iyo aad u adkayd oo arkaysaan caawin dhulka halkaan u joogno waxaa noo dhiman inaan containerkii dhigno container fii marka hore saa loo xirayo hadhowna u laga dhigayo dabeetana intaadaa la buuxinayaa kabacdina doonta ayaa waxa lagu bilaabayaa dejinta haddii ilaahay subxaana watacaala ka raali noqdo. runtii hawshan ilaahay baa noogu hiiliyey, ilaahay subxaanahu watacaala baa hiilkeeda keenay, ilaahay baa na solansiiyey amana waafajiyey inaanu shaqadaan isu taagno. waxaana ka dhow waa lagu guulaystay alxamdulilah rabbilcaalamiin. ka dhow ma oran karo konteenaradaas la xirayo beri subax insha allahu tacaala ayaa inoo haray. hawshu insha allahu tacaala waa guul. kabacdina insha allahu tacaala waxaa la bilaabi doonaa doonta in alaabtii laga soo dejiyo. waxay ummaddu baratay marka qabsan karo. waxaan rabaa wax yar inaan xagga idiin leexiyo aad nifto sida loo wado containerska iyo waa kuwaas containerskii waad arkaysaan. containerska waa kuwaas gadaal shaqada yaala, mushashkii baa shaqaynaya, motooradii baa shaqaynaya, aqoonyahanka iyo ragga samayqaankaa baa shaqaynaya. containeradu waa diyaarsan yihiin, xoogaa baa lasii naashnaashayaa, dabeetana waxaa la dhigayaa biyaha dhexdooda. biyaha dhexdooda marka la dhigana ciidan ayaa lasii geyn doonaa, markaa tiibaa marka loo xirayaa. kabacdina dhinac walba sida l oo kale markaa u bay isu bedelaysaa, udaasaa la buuxinayaa. waxaa soo baxaya ground deked ah oo wiishashku ay imaanayaan, dabeetana alaabta laga dejinayo. hadda waa idinka arkay wiishka halkaa ku kala baxsan oo shaqada wada. containerska waa kaa forkliftkii weynaa baa taagan. alxamdulilahi rabbilcaalamiin, hawshan waa lagu guulaystay. ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel ay joogaan ba inay isku tashadaan, inay wax qabsadaan. hawshan looma kala harin, maaha wax siyaasada, maaha wax cid lagu bahalkeenayo. waa ummaddu inay wax qabsato. waa loo dhow yahay dhinac walba, ummadda waa loo dhan yahay, shacabkii oo dhan baa u taagan, maamulkii baa ka shaqaynaya. hawl dhammaystiran weeye. sidaa daraaddeed waxaan leeyahay aynu wax wada qabsanno, aan isu taagno inaynu dalkeenna wax ka qabanno, aynu midnimadeenna ka shaqayno, aan ka qaangaarno geesnimada iyo waa xun. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.